dadweynaha degan degmada gacan libaax ee magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Jimcaale ayaa baaq cabasho u diray madaxweynaha Soomaaliland waxaana cabasho xooggan ka muujiyeen golaha deegaanka caasimadda Hargeysa maarayaha wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa iyagoo sheegay dadweynahaasi inay heshiisyo hore ula galeen ay kaga baxeen dadweynahan ayaa madaxweynaha ugu baaqay inuu arrintaasi wax ka qabto iyagoo amuuraan ka hadlayna waxay yiraahdeen cabasho oo aanu cabanayno madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha wasiirka ku-xigeenka amniga dhammaanba xukuumadda xaafadda ninka Jimcaale xaafadda ninka bixiyey oo Jimcaale la yiraahdo wixii loogu ballan qaaday ee ku heshiiyey ee caqabmuuna wixii isku ogay haddana lagaga daba yimid ayaanu ka hadlaynaa waxaan leenahay oo sheegaynaa xukuumadda iyo wasiirka arrimaha gudaha wasiirka ku-xigeenka amniga nabadgelyada in la ilaaliyo oo qofka muwaadinka wuxuu ka cabanayo la weydiiyo arrin mashruucan guuguubno oo wakaalada biyaha maarayaha wakaalada biyaha maamulayo arrimahan inaga taagana uu dadka ugu jiro anagoo la hadlayna madaxweynahayada Axmed Maxamed Maxamuud aadan anagoo la hadlayna marwadiisa la hadlayna dhammaan golaha wasaaradda la hadlayna golaha maxay hayday waanaada la hadlayna wasiirka amniga iyo ku-xigeenkiisa la hadlayna anaga oo leh waxaanu nahay muwaadin xaqooda hoos loo eego markay wax dhacaan ee dad dhintaan inuu soo wacama fil Mareykanna mataleeyo ummadda meeshan ku dhimatay maalin walba dhulka waa lagu dhintaa dhibaato ka dhacda markay dhibaatadaas dhacdo ka bacdi dawladdu hadday wacdo dadkeedu way ku dhamaanayaan maanta waxaan rabnaa wixii aan xaq u lahayn baan doonaynaa wax kale ka baxsan ma doonayno waxaan rabnaa in dawladdu hoos loo eegto muwaadiniin baan nahay xaqooda hoos loo eego haddii lagu tacadiyo laga qabto dawladda hoose haddii aan anagu waxweynayna runta loo sheego anaga markaa garta qaadanayna laakiin waxaanu halkan ka codsanaynaa in arrinkayaga loo soo degdego aan laga seexanin maskaxa aan laga hubin arrinkaasi oo meel xun maraya maaha markii ugu horeysay ee dadweynaha degan xaafadda Jimcaale ee bariga magaalada Hargeysa ay cabasho xooggan ka muujiyaan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa balse ilaa hadda ma jirto cid ka jawaabtay cabashadaasi Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa